halkani waa wadanka Rwanda wuxuu ku yaalaa bariga qaaradda Afrika wuxuu daris la yahay dalalka Uganda, Tanzania, Burundi iyo Kenya waxa gumeystay wadamada Jarmalka iyo Belgiumka wuxuuna xorriyadiisa qaatay 1 July 1962 dalka Rwanda waa dalka ugu yar wadamada Afrika masaaxada uu dhulka uu ku fadhiyaana waxa lagu qiyaasay 26338 kilomitir square 2005 tiro koob lagu sameeyay dadka reer Rwanda waxa lagu qiyaasay 12,266,564 oo qof sidoo kale waadada ay aad isugu eegyihiin shacabka Soomaalida caasimada wadanku waa Kigali luqado badan ayaa laga isticmaalaa wadanka Rwanda waxaana kamid ah Kinyarwanda, Ingiriisi iyo Swahili lacagta wadankana waxa lagu magacaabaa Rwanda franc dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha sida sokorta, caleenta shaaha, tubaakada iyo qasilka sidoo kale waxay dhaqdaan xoolo ay kamid yihiin lo'da iyo ariga saddex qabiil ayaa wadanka ku nool waxayna kala yihiin Hutu, Tutsi iyo Tawa waxaana ugu tiro badan qabiilka Hutuga wadanka Rwanda waxa si weyn loogu xasuustaa xasuuqii ka dhacay sanadkii 1994 waxaana xasuuqaasi sababay kadib markii uu shil diyaaradeed ku dhintay madaxweynihii wadanka xilligaasi xukumayay kaas oo ka soo jeeday qabiilka Hutuga waxayna Hutugu xasuuq baan u geysteen qabiilka Tutsiga oo ay ku tuhmayeen inay ka dambeeyeen dilka madaxweynaha Rwanda maadaama ay hogaaminayeen mucaaradka ugu ballaaran wadanka waxaana xasuuqaasi uu sababay dhimashada in ku dhow 1 milyan oo qof waxayna sidoo kale ku eedeynayeen dadkaasi inaanay u dhalan wadanka Rwanda balse ay ka soo jeedaan wadamada geeska Afrika sida Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea waxayna si gaar ah aad isugu eegyihiin shacabka ku dhaqan Soomaaliya inkastoo uu soo maray marxalada adag wadankaasi haddana maanta waxa ka hirgalay nidaam dimuqraadiyadeed oo si weyn uga tisqaaday dalka Rwanda wuxuuna ku talaabsaday horumar ballaaran oo dhinac kasta leh haday noqoto adeegyada gaarka ah ee bulshada sida caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo baahiyaha kale ee muhiimka u ah wadankaasi sidoo kale waxay indhaha ugu qabanayaan daaraha dhismayaasha dhaadheer kuwaas oo ku tusaya sida degdeg ah ee uu kobcay wadanku iminka haatan madaxweyne waxa ka ah Paul Kagame waxyaabo fara badan ayuu ka hirgeliyay wadanka Rwanda waxyaabaha sida weyn loogu amaano waxa kamid ah soo afjaradii dagaaladii sokeeye ee ka dhacay wadankaas waa madaxweyne jecel wadankiisa oo mideeyay dadkiisa wuxuu ka soo jeedaa qabiilka Tutsiga waana qabiilka ay xasuuqeen Hutugu haddana madaxweyne Kagame iyadoo qabiilkiisa loo geystay xasuuqaasi baan muusan aargudan waxa la weynaatay qarnimada wadankiisa dadaal ayuu u galay sidii uu Rwanda uga dhigi lahaa wadan awood leh maantana waxay safka hore kaga jirtaa dalalka ugu dhaqaalaha badan qaaradan Afrika 3 jeer oo isku xigta ayuu ku guuleystay kursiga madaxtinimada wadankiisa wuxuuna tirada dalkaasi hayay 2000 ilaa haatan